muuqaalkan aad u jeedid waxaa lagu tusayaa tijaabo lagu sameynayo nuclear-ka waxaana laga soo gamayaa ama laga soo ridayaa gudaha badda ama qaybta hoose ee badda asagoo u soo baxayo sida aad aragto. Tijaabadan waxaa sameeyay 8 dal ee haysto hubka khatarta ah ee lagu magacaabo nuclear-ka. Mareykanka ayaa ah dalkii ugu horeeyay ee tijaabiyay hubkan khatarta badan ee sunta ah 16 July 1945 ayayna tijaabadaas sameeyeen Mareykanka waxayna tijaabiyeen 30 bam. kaalinta labaad waxaa ku jira Russia. tijaabadiisii ugu horeysay wuxuu sameeyay Agoosto 29 1949 wuxuuna tijaabiyay 785 bam. Ingiriiska ayaa kaalinta tijaabinta 3 ku jiray markiisii ugu horeysay oo uu tijaabiyo bamka khatarta badan wuxuu tijaabiyay 45 bam waxayna ahayd 3 Oktoobar 1952. Faransiiska ayaa tijaabiyay 210 bam 13 Febraayo 1960 ayayna ahayd tijaabadaas oo sameeyay Faransiiska. China ayaa isagana tijaabiyay 45 bam Oktoobar 16 1964 ayayna tijaabadaas sameeyeen Chinese-ka. India ayaa guud ahaan tijaabisay 3 jeer. May 18 1974 ayayna dhacday tijaabintii ugu horeysay oo ay sameyso India. Pakistan ayaa iyadana guud ahaan 2 jeer tijaabisay. May 28 1998 ayayna ahayd markii ugu horeysay oo ay Pakistan tijaabadaas sameyso. tijaabadii ugu dambeysay waxaa sameeyeen Koonfurta Kuuriya waxayna tijaabiyeen 6 jeer ama 6 mar. markii ugu horeysay oo ay tijaabadaas sameeyeen waxay ahayd Oktoobar 9 2006. haddana hubka halista badan waxaa raadinayo Iran. waa ku mahadsantahay daawashada like saar muuqaalka.